السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلامتين داوديال من walba joogtaan si walba muuqaalkan u daawanaysaan kusoo dhawaada cashirkeenii 12aad ee ku saabsan koorskeennii computerized accounting-ka oo aynu ku baranaynay software-keenii Page 3 insha Allah maanta cashirkeena waxaa kale nahay laba ujeedooyin kooda waxay tahay cash receipts qof macaamiil ah oo diin aan ku leenahay wuxuu noo keenay lacagtii noo keenay sidee baa u diiwaangelinayna ujeedooyin labaad waxay tahay cash payments qofka anaga wax ka soo iibsano ama vendor-ka noo ah ayaa lacag nagu lahay lacagtii aan iska siinay marka sidee baa u diiwaangelinayna labadaas ujeedada maanta cashirkeena aan kaleena balse intaan u gudbin muuqaalkeena kusoo dhawaada cashirkeena ujeedkeena koowaad wuxuu yahay cash receipts qofka mid macaamiishana wuxuu noo keenay lacag aan ku lahayn diin aan ku lahayn noo keenay marka akoonada saameyn karto waa dareemi kartaa akoonku waa saameynaysa waxay tahay akoon ka mid akoonada cashka okay haddii hal akoon oo cash leedahay halkaas akoon saameyn kartaa haddii aad laba akoon oo cash saddex akoon cash leedahay midka aad doorto ay saameyn doontaa sidoo kale waxaa saameyn doontaa akoon receivers diinta macaamiisha ku maqnayd waa yaraan doontaa okay cashkaagana waa u badan doonaa sidoo kale tan kale ay saameyn doonto waxay tahay customer balance macaamilkaaga lacagta ku taagneed way yaraan doontaa maadaama uu lacagta haf uu iska bixiyay okay sidoo kale cash payment intuu saameyn doonaa siin diin adiga lagu lahay ay iska muxuu saameyn karaa kow lacag dhiibsama cashkaaga way yaraan doonaa okay sidoo kale account payable-kaaga way yaraan doonaa okay diinta adiga kugu taagneed way yaraan doontaa sidoo kale waxaa yaraan doona vendor balance ama vendor-kaaga lacagta kugu lahay way yaraan doontaa intaas waa koon ayuu saameyn doonaa bal haddeertana aan tuso iyadoo practical Page 3 markaa tagno waxaa ku fur doontaa halka qoran tahay taxes adigoo kasoo diro doonto receipts markaa ku dhufato halkan waxaa ka dooran doontaa customer-ka ee lacagta kuleed lacagta ku keenay ID-giisa ay gelinaysaa aniga waxaa leenahay tusaale C001 customer-kaas lacagta noo keenay oo loo yaqaan Cabaas haddii aad ID-giisa qaadi inta kasoo dooro okay customer-ka markaa soo doorato asigaa kuu sheegaya diinta aad ku leedahay okay inta waxaa u jeedaa taariikhda markay ahayd November 2019 waxaa diiminay lacag gaarayso $2,000 okay sidoo kale November 24 markay taariikhdu baneed waxaa diiminay lacag kale oo gaarayso $4,000 isku darka lacagta ku leenahay waxay tahay $6,000 okay haddii aad dhahayno lacagtan $6,000 la siiyo okay inta tag saaraysaa okay labada xabad tag saaraysaa oo inta markaas waxa cadeynaysa inaa heshay $6,000 inaa heshay cadeynaysa okay haddii aad $6,000 aadan helin oo aad tusaalahaan lacagta half a cash okay half aad tusaalahaan ka helnaa leenahay $6,000 mana wada siin ninkan intaad qoraysa okay amount bid lacagta aad bixisay intaad qoraysa tusaalahaan waxaa leenahay $4,000 la siiyo okay sidoo kale meesha waxaa ka dooranaysaa akoon cash lacagta ku dhacayso okay akoonada cash ku samaysan inta ka soo dooro aniga salaam bank ma noo dhigay mise cash caadi la siiyo leenahay cash caadi la siiyo iska tusaalahaan okay $4,000 waxaa rabnaa cashkin $4,000 inay ku darsanto sidoo kale account receivables-kan inay ka goodo $4,000 inay ka goodo rabnaa customer balance waxaa rabnaa $6,000 ahay $2,000 inay noqoto rabnaa waxaan mar u tagnaa akoonada saacidinta balance wada kor intaan sameyn transaction-ka waxaa tagina halka qoonta maintain waxaa kasii dooran doonaa chart of accounts markaan kasii doorano waxaa kusii dhufan doonaa halka qoran tahay list markaa taabano waxaa u jeedaa cash in hand inaan lacagteena cashkeena tahay $12,000 okay $2,000 haddeerta $4,000 aan la siinay okay account receivable oo ujeedaasina waxaa ku jirta $6,000 macaamiisheena aan ku leenahay macaamiisheena $6,000 maadaama aan ku leenahay $4,000 la siiyey okay meeqaan ku leenahay marka $2,000 inay noqotaa rabnaa okay sidoo kale customer balance okay customer balance waxaa ka teginaa maintain markaa taaban customer/prospectus ku doonaa customer/prospectus markaa ku dhufano list aan kusii dhufan doonaa list markaan kusii dhufano oo ujeeda halkan customer balance inuu yahay $6,000 $4,000 la siinaa $2,000 inay ku hartaa rabnaa inta meeshan okay Cabaastinka Allah $6,000 ka rabnaa laakiin haddeertaan $4,000 la siiyo waxaa rabnaa inay noo harto $2,000 waxaa teginaa transaction-keenaan ku laabanayna transaction markaa ku laabto halkan waxaa gelinaysaa reference-ga gelinaysaa okay markaa lacag gelinaysa tixraac ama reference gelinaysaa reference waxaa rabtaa gelin kartaa haddii aadan reference aadaysan okay receipt number waxaa gelinaysaa lacagtan receipt-ka numberkeeda gelinaysaa tusaale receipt-kii koowaad iska leenahay okay intaas markaa geliso waxaa leenahay save aa leenahay okay سيف markaa raano waxaan rabnaa diinta macaamiisha ku leeyahay in 4 kun ka jarto
sidoo kale dad kaashkeena ay ku darsanta 4,000 okay aad tagna akoonadeen iska xir meeshan waxaad teginaa koronta maintain waxaan kasii dooran doonaa chart of accounts markaan kasii doorno waxaan kasii dooran doonaa list kasii dooran doonaa list markaan kasii doorno halkaan oo imaanayna cash in hand oo jirta dad 10,000 nagu jirta dartan waxaan ugu jirta 16,000 okay account receivables keena aan diinta macaamiisha ku leenahay 106,000 nagu jirta 4,000 asna ku goodo meeqana hatay 102,000 okay macaamilkeena cabaas lahayo meeqa lacag ku taagan dad 6,000 ku taagan dadka ku handartan waxaan ku taagnaa doonto 2,000 ku taagnaa doonto maadaama 4,000 uu iska bixiyay okay waxaad tigina halka qoran tahay customer/prospectus waxaan kasii dooran doonaa halka loo yaqaano list markaan kasii doorano waxa u jeedaan cabaas ninka lahaa inuu balance-giisa yahay $2,000 okay halkaasina waxaan ku eg ujeedkeedii koowaad iyo 10 ujeedadeena labaadna waxay tahay inaan siino vendors-keena lacag okay mid ka mid ah vendorada wax ka soo iibsano ayaa lacag uu nagu lahay ayaan siinay okay lacag markaa siisay akoonada saameynaysa soo fahmi kartaa Soomaali okay kow kashkaaga weeraa dura maadaama lacag aa iska dhiibtay okay sidoo kale diinta lagu leeyahay ama akoon payable-kaaga weeraa doonaa maadaama lacagta ahaa baa iska dhiibtay okay sidoo kale vendor balance okay vendor-kaaga balance-giisu weeraa doonaa intaas akoonada saameyn doonta idin bal hadda aan inta sida loo sameeyo waxaad tegin halkay qoran tahay tasks anaga kusii dooran doona halkay qoran tahay payments markaan kasii doorano wuxuu ku leeyahay payment markaa sameynaysi lacagta intay ka dhiibtay masalan banki ku tishi jee u qortay waxaa dhahay islaan banki lacagta ka qaado mas waxaa siisay lacag cadaan ah siisay okay akoonada cash ku samaysan mid ka mid ah inta soo dooranaysaa anaga tusaalahan waxaa leenahay cash on hand inay samaysaa okay haddii aad rabto waxaad dooran kartaa EVC akoonada cash ku samaysan inaa inta kugu soo bixi doonaa waxaad dooran doontaa akoon cash aad ka dhiibto okay cashka akoonka gogo'aya masalan bankiga ka siisay mise caadi u siisay mise EVC mise daabshiila u dhigtay akoonadaada ayuu saameyn doonaa okay anaga tusaalahan waxaan leenahay cash on hand okay hadda qoranta okay aan leenahay okay markaan aan sidaan ma soo bixi doonto waxaan soo dooran doonaa vendors-keena sudden spare parts tusaalahan okay halkan waxaa kaaga muuqato lacagta uu kugu leeyahay inaan ku soo bixiso isla markaa vendor-ka aad doorato halkan waxaa kasoo bixi doona lacagta lagu leeyahay taariikhda markay ahayd 14 November 2019 ninkan wuxuu nagu yeeshay lacag gaaraysa $18,000 sidoo kale markii taariikhda ay ahayd 14 November wuxuu nagu yeeshay 3,600 okay taariikhda anaga qaldan laakiin dib badan okay ninkan lacagta meeqa ayuu sii kala tusaalaan totalkaas uu nagu leeyahay ninkan waxay tahay waa $22,600 nagu leeyahay okay $22,000 ugu jira $3,600 okay meequu nagu leeyahay $22,600 nagu leeyahay okay haddii $22,000 wax dhan aan siisay intaa jag saaraysaa okay adoo isdhimin okay intaa jag saaraysaa haddii aad intaas dhan aad dhiibin oo tusaalahaan haaf aad dhiibto okay tusaalahaan anaga waxaan ahaynay $10,000 dhiibin tusaalahaan inta waxaad gelinaysaa lacagta dhiib tusaalahaan anaga $10,000 dhiibmaa leena okay inta waxaad gelin kartaa faahfaahin yaraa koobanaa geli kartaa waxaa leedahay waa diintii aan ugu leedahay wax saas camal ay geli kartaa haddaa rabtan waa iska dhaafi kartaa okay inta waxaad dooran doontaa taariikhda ay dhiibto lacagta inta waxaa rabaa inaan tuso akoonada ay saameyn doonto okay waxaad tegin halka qoran tahay maintain anaga kasii dooran doona chart of accounts kadibna kasii dooran doona halkay qoran tahay list markaa daawano waxaa noo soo bixi doonta cashkeena inuu yahay $16,000 okay $16,000 hadda yartaan waxaa rabnaa $10,000 inaan diin kula iskaga dhiibno okay 6,000 haysani 10,000 diin aan ku dhiibno aan ku lahayn meeqaan soo harayso $6,000 aan soo harayso okay hoostiisa akoonadan kale ma saameyn doonto ilaa waxay saameyn doontaa account payable okay ama diinta adiga lagu leeyahay account payable keena waxaa u jeedaa inuu lagu leeyahay $81,600 okay $81,600 $10,000 iska dhiibnay okay $10,000 iska dhiibnay marka waxaan ku lahaan doonaa $81,600 hawaas akoona meeshaan ka saameyn doonta sidoo kale vendor balance okay halkay qoran tahay maintain waxaa kasii dooran doonaa vendor kadib waxaa kasii dooran doonaa halkay qoran tahay list waxaa u jeedaa vendors-keena balance-giisu inuu yahay $21,600 $21,600 waxaa dhiibna $10,000 dhiibna okay halkan macaamiil wuxuu nagu lahaa $21,600 laakiin diinta guud ahaan lagu leeyahay waxay tahay $8,600 so diinta ninkaan bis diin nagu lahaa niman kale diin nagu leh okay $8,600 waxaa rabnaa inaan ka go'do $10,000 maadaama ninkaan $10,000 aan siinin okay ninkaan bis $10,000 siin okay waxaan rabnaa in meeshaan ka soo baxa dhowti $21,600 transaction marka ay waxaa rabaa inay noqoto $21,600 sidoo kale kashkiigu uu noqdo $6,000 sidoo kale account payables kan uu noqdo $21,600 bal hadda taan u laaban transaction kan kadibna aan soo ridno okay
وأوجد ترانسكشن إنه هذا إنسان نوية وحاليا كلي سيف مركا أنا واحدة مؤدى أساس سامينا أوكي هذا كسر هذا أسكده صراحة ريفريشن على اسكندريه وجد انه نقد تبنيكوكن الى حبقل فين بالانس جينا وحو نقدي تبنيكوكن الى حبقل اوكي تبنيكوكن الى حبقل marka naqdi waxa raba inaan soo qaato chart of accounts okay maintain tagina chart of accounts si tagina halka qoranta list of si tagina list marka aan ka sii tagno waxa ujeedaa cash keen inuu yaraado oo 6 doollar noqdo sidoo kale account payable keen waxa noqdo 20 ila حبقل 8 ila حبقل aan ku lahay laakiin waxa iskriim 10 doollar iskriim سو برنامج كان هو برنامج بروفيشنال سو كانت عشرة هو سيريس عشرة اسكو حلو يعني هدي كسو بدو سيدو لوصلنا انفنتوري او عرفتنا سيريس مسمس ميكرت ما دام انفنتوري او كوس مسنا سو عشرة سي اسكو حيان دا او قادته وحاقبه انا بقولكي وبقول افادلود ان شاء الله سو كانت waxaa raba inaan reports keen okay diina diibna okay sidoo ku ogaan kana diinta diibni reports keeda waxana lagu leeyahay dhamaan waxa tagay halka qoran tahay reports and forms okay kadib waxaan kasii dooran doonaa halkay qoran tahay account payable marka doorno waxaa kusii dhufan doontaa cash disbursement journal taariikhda markay ku bilaabto 7 October oo invoice numberkeedu intaas yahay waxaa dhibna lacag gaarayso $10,000 dhibna okay haddii aad rabtid $10,000 qof kale siina awaad okay $10,000 qof kale siina awaad rabtaa adoo isdhibin double click la ku sii double click marka ku siiso inta waxa ka soo bixi doona Fender 001 okay oo nugu lahaa 28,000 iyo waliba $3,600 nugu lahaa waxaa siin $10,000 okay aska ka sanayna soo kale waxaa rabaa inaan account receivable keen kuudi markii aan sameeyay diinta aan macaamiishan ku lahayd waxaa tagina halkay qoran tahay reports waxaa kasii dooran doonaa halkay qoran tahay account receivables marka doorato waxaa kusii dhima doontaa cash receipt journal double click ku sii cash receipt kan waxaan ka hadlayaa cash ku soo galo dhan oo ka hadlay okay markay taariikhdu ay ku beenayd 22 October invoice 254 nin Abbas lahayo waxa iibini waxaan noo keenay $2,000 maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 27 bishii waxaan soo galay cash kale $4,000 marka labadaas xab series oo hay labadaas kun series oo ku helay labadaas kaloon talaatood series kala ku helay afartan kun waxaan ku helay diintii ku kana waxaan meesha ka imaadeen double click la ku siibis okay double click marka ku siiso inka Abbas lahayo alaab naga iibsaday alaabta $6,000 ahayd $6,000 $2,000 u dhiib okay partially paid half ka mid u bixi $6,000 bixi $2,000 u bixi okay iska xir $2,000 kale intee ka imaadeen double click ku sii paid in full dhammaan uu bixi alaab naga iibsaday 10 mobile naga iibsaday $200 naga iibsaday $2,000 ahayd $2,000 uu bixi okay afartan kun iidan inta ka imaad muu fahmay meesha ka imaad double click la ku soo dafaamis okay asaga ku soo baxay wuxuu ku leeyahay ninka Abbas la $6,000 ku leed $4,000 ku sii okay $4,000 ku soo gashay marka barnaamijkan waa barnaamij aan caadi ahayn halkaasina waxaan ku labadeena ujeedo ee ku saabsanaa cash payment iyo waliba cash receipt waxaan rajeynayaa inaad fahanteen kadib ma isku dayn doontaan insha Allah oo aad sameyn doontaan وعد باس حسن نور أويدين له أضو دحل ريبي كرو حنقول انت على التميل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.